aad ayay muhiim u tahay in beeraleyda Soomaaliyeed ay soo saartaan dalagyadooda oo la qabsan kara wadanka oo ay dhexdeeda ay awoodi karaan inay isdhaafsadaan abuurka kala duwan ee aan la isku haleyn midka dibadda laga keenayo kaliya. maxaa yeelay taas waxaa laga yaabaa cudurrada iyo dhibaatada in ay badiso maadaama aysan abuurkaas dibadda laga keenayo laga yaabo inaysan la qabsan karin oo aysan ku habboonayn cimilada dhulka Soomaaliyeed. marka waa videogii labaad oo aan ka sameynay basasha. waxaan uga hadlaynaa qaabka loo soo saaro abuurka basasha. ma ahan marka basashu kuwa ugu sahlan ee la rabo in abuurada la soo saaro. dalagyo kale oo ka sahlan ayaa jira, laakiin waa muhiim dadku inay fahmaan si dad inta baaritaan badan u sameeyaan ay u awoodaan inay soo saaraan basal ku habboon wadanka gudihiisa. fadlan ka faa'iidayso. السلام عليكم. كسر هذا الفيديو كله يدين دارس فام صوماليا وانا قلت لك إني كيف إيديستان ولا لها صوماليات مقعد وعلي باشي. فضل هدي أكو عصبتها كنالك سبسكرايب ده بالك نتابو سيسكودا في الفيديو كستا ونصوصا منه. فضلا لو ذاك وجود بي ولا لها كله صوماليات سي وقف إيديستان وما سنتين. كسر هذا الفيديو قلبات وعن كسمين إنه بسشة فيديو عن مركب حنوه لنا سيدا أبور كبسشة لوسو صارو. وهدي أن ربنا إن وطن كان وجارو إسكو في لاشو إن عبارها waa inaan dhinacyada dhan aan awood saarnaa oonan isku halayn kaliya abuuryada dibadda nooga imaanaya. marka basashu ma ahan geedaha ugu sahlan ee seedkooda ama abuurkooda la soo saaro, laakiin haddii awoodda la saaro oo dadku ay maaragtay baaritaan sameeyaan oo loo dulqaato waa dalagyada abuurkooda la soo saari karo. haddii marka la helo kuwo wadanka u qalma oo inta dibadda laga keeno wadanka lagu tijaabiyo lagu abuuro waa dalagyada aadka u muhiimka ah oo ay sax tahay in awoodda la saaro. marka sidaas darteed videoga waxaan uga hadlaynaa marka abuurka basasha qaabka loo soo saaro. marka haddii aad rabtid marka inaad ama gurigaaga ku abuurtid basal ama aad rabtid beertaada inaad ku abuurtid, abuurka waa waxa ugu muhiimsan oo faa'iidadaada kor u qaadi kara. maxaa yeelay mid wadankaaga ku habboon haddii aad heshid xilliyada aad abuurayso iyo sida uu kaysamayo aad ayay muhiim u tahay marka in isagaas awoodda la saaro oo isagoo tayo leh wadanka laga soo saaro. marka abuurkaas waxaa la rabaa in dadku ay xaafadooda ku abuuran karaan, si sahal inay ku heli karaan, inuu yahay mid tayo leh oo cudurradii wadanka iyo abaarta wadanka ka jirta mararka qaar ka dhacdo biyo yarinta ah u dulqaadan kara. maxaa yeelay geedaha kala duwan qaarna meel biyo badan laga soo saaro ayay ku fiican yihiin, qaarna waxay ku fiican yihiin meel oo biyuhu ay ku yar yihiin sida wadankeenoo kale. marka aad ayay muhiim u tahay taas inaan marka aan ka hadalno oo aad ka faa'iidaysataan insha allah. marka ma ahan kaliya midaas muhiimad uma ahan kaliya basasha ee dalagyada kale ee kala duwan ee wadanka ah in beeraleydu ay tababartaan oo ay fahmaan oo wadanka laga sameeyo meel ay dadku beeraha ka fahmaan si ay u soo saari lahaayeen. taas marka in awoodda la saaro dalagyada kala duwan oo la fahmo oo ka bacdi beeraleydu ay soo saaraan abuurkii wadanku u baahnaa aad ayay muhiim u tahay, iyo jaamacadaha iyo ay soo saaraan ka bacdina beeraleyda loo gudbiyo. marka arrin la fududeysan karo muhiimadeeda ma ahan. marka sidee miraha basasha loo soo saaraa oo qaabkee loo maraa? qaabab kala duwan ayaa loo maraa. laba qaab ayaa la isticmaalaa markii la soo saarayo basasha. mid loo yaqaano seed to seed iyo mid loo yaqaano bulb to seed. labadaas nooc ayaa la maraa si loo soo saaro abuurka basasha oo ka bacdina hadhow abuurkaas beeraleyda iyo dadka wadanka looga iibiyo. taas marka micnaheedu waxa weeye abuurkii ayaa soo qaadatay, waa abuurtay, ka bacdi ubaxii ayay basashii saartay oo ubax ayay gaartay, ka bacdina waxay kuu soo saartay miro kale oo lasii abuuro oo lasii badiyo. midda labaad oo la isticmaali kara waxa weeye jiridii basasha ayaad abuuraysaa. walaalaha qaar jirid u isticmaal ay yiraahdeen, ka bacdi ayay u bixinaysaa, saas ayay miro ku soo saaraysaa. marka labadaas qaab ayaa loo maraa basasha markii la soo saarayo. insha allah marka labadan nidaam gadaal ayaan kasii sharaxi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. sida aan nirina basashu ma ahan kuwa ugu sahlan ee ah in la soo saaro mirahooda, laakiin sida caadiga haddii aad rabtid jiridda ama basasha inaad soo saartid inuu bixisaa waa dhibaato weyn oo wax aad rabta ma ahan. kaliya markaa rabto inaad bixiso
waa markii aad rabtid inaad abuur aad soo saartid marka jiridii oo basasha iyadoo la rabay in la iibiyo ma fiicnaanayso marka maadaama uu kasoo dhex baxay ubixii marka ujeedada oo ubaxa loogu ogolaadaa waa markii la rabo kaliya in miro lasoo saaro tusaale ahaan marka haddii aan soo qaadano kale yaanyada iyo barbarooniga oo kale iyaga sida mirahooda lagu helaa waa iska caadi waa si toos oo sahlo qof kasta uu yaqaano waxaad kaliya uun samaynaysaa inaad mirtii barbarooniga iyo yaanyada aa u ogolaatid inay geedka ku bislaato markii ay bislaato kabacdi iyadoo bislaatay ayaa geedka kasoo qaadaysaa miraheedii ama waa qalajinaysaa ama adoon qalajinba xataa waa duugaysaa sidaas ayay kusoo baxayaan marka sidaas ma ahan iyada basasha waa nuuc ka mid a dalagyada ee loo yaqaano biennial plant oo micnaheedu uu yahay waxay qaadanaysaa 2 sano wadamada qaar oo aan qabow saa'ida lahayn sida Kenya oo kale iyo Ethiopia oo kale mararka qaar waxay qaadan kartaa 1 sano ayay qaadanaysaa oo waxay samaynayaan 2 jeer 2 xilli oo kala duwan ayaa la abuurayaa marka waa dalagyada 2 xilli la abuuro si ay u dhamaystaan life cycle-kooda oo markii aad mirti abuurto ilaa aad mirti kale aad soo go'ayso 2 sano ama 2 xilli ayay qaadanaysaa marka inta aanan sii sharaxin qaabka loo soo saaro marka hore waxaan isiriiri waa inaad ka hadashaa horta shuruudaha deegaanka loo baahan yahay si loo soo saaro abuurka basasha tan marka xoogaa way ka duwan tahay markii aad rabtid jiridii ama basashii caadiga ahayd oo suuqa rabtid inaad geyso oo halka xilli soo baxaysay way ka duwan tahay waxa ka fakarayso kulli dabcan markii aad rabtid abuur inaad soo saartid waa waxa loo yaqaan genetic geedka genetikiisa saameyn ayuu wuxuu ku yeelanayaa mirihi aad soo saaraysa ilaa miro ayaa rabtaa inaad iibisid marka geneticaas waa mid inuu yahay wadanka u qalma oo dadka beeraleyda ay rabaan insha Allah video ayaan wax ka samayn doonaa basalaha lagu abuuro wadamada East Africa oo aan isleenahay cimil ahaan aan iska agdhownahay ayaa rabaa in ayadana video kale ka sameeyo hadii Ilaahay yiraahdo si dadku ay u yaqaaniin basalaha ka baxaya wadankeena oo mararka qaar xataa iyagoo iiba wadankeena la keeno kabacdi kuwaas waxay u badan tahay marka inay wadankeena u qalmaan marka genetiku aad ayuu muhiim u yahay qofku inuu fahmo nooca uu yahay maxaa yeelay nooc oo wadamada kale laga keenay hadii aad keentid oo la qabsan karin wadanka genetic ahaankaas faa'iido ma yeelanayo midda labaad oo aad rabtid oo ka fakaraysid oo saameynaysa waa environmentiga saameyn weyn ayay wax ku yeelanaysaa basashii aad soo saaraysay sida heerkulka horena waan u taabanay hadeerna waa sax waa muhiim waxa kaloo saameynaya roobka ma ahan kaliya inaad ka walwalaysid okay geedkaygii ama beertaydii ma heshay roob ku filan waxa ka fakaraysaa xilligii saxda ah roobkaasi ma da'aya mise xilli qalada ayuu ugu da'aya oo ma rabtid xilli aadan u baahnayn ayaa jira roobka inuu kugu da'o oo sidaas darteed aad ka wareegtid ciidana aad ayay muhiim u tahay maadaama jirideeda hoos ay ku baxayso ciiddu aad ayay muhiim u tahay iyadana waxa kaloo aad u muhiim ah waxa loo yaqaano pollinators ama honeybeeska oo insectska oo maaragtay bacriminaya ubaxyadii aad ayay muhiim u yihiin oo waxay sahlayaan in seedkii ama abuurkaagii uu diyaar noqdo marka waa muhiim in meesha aad ku abuuraysa ay joogaan haddii marka aan kusoo noqono kuwa wadanka ku habboon oo cultivarska loo yaqaano ama varietyga kala duwan ee wadanka ku habboon waa muhiim kuwaas inaan helno kabacdi kuwaas ayaan badin karnaa maadaama ay la qabsan karaan wadanka oo aan tijaabo ku samaynay waxyaabo badan aan ka fiirinaynaa sida u kaydsamayaan qaabkaas kala duwan oo dhan ayaan ka fiirinaynaa qaarkood waxay markay ku liitaan waxaa laga yaabaa inay soo saaraan miro yar maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin xilli qabow oo saa'id ah marka xilli qabow oo saa'id ah inay soo maraan ay u baahan yihiin si ubaxa u saaraan marka dabcan qabowga saa'idka kuwa raba wadankeena ma qaban karaan maxaa yeelay meelo badan oo wadanka ka mid ah qabow saa'ida kama dhaco marka muhiim waxa ah in qabow saa'ida aysan u baahnayn kuwa aan rabno inaan ubaxa inta yeeshaan aan miraha kasoo guranno heerkulkana sida aan taabanay isaguna aad ayuu muhiim u yahay maxaa yeelay markii aad rabtid inaad soo saartid midda aad suuqa aad geynaysid iyo midda oo loo yaqaano mother bulb waa kala duwan yihiin marka midkan oo la rabo in lasii abuuro oo hadhow laga dhaliyo ubaxa 18 24 25 celsius oo maalinkii ah ayay u baahan yihiin hameenkiina waxay u baahan yihiin 10 ilaa 12 celsius ayay u baahan yihiin waxaan marka u sheegayaa inta oo loona sheegaa markasta inta temperature uu u baahan yahay dabcan waa laga helayaa wadanka Soomaaliya meel hameenkii 10 iyo 12 ay noqoto maalinkiina ay noqoto 18 ilaa 24 xilliyada qaar
aad ayaa looga helaya. Marka lama dhihi karo waddankeena qabowga noocaas lagama helo oo uma qalanto. Haddii la raadiyo si fiican loo sii tijaabiyana waxaa laga yaabaa kuwo intaan ka kulul wax soo saar fiican ku yeelan kara in la helayo. Marka dabcan markii la rabo basasha caadiga ah oo banaanka la geynayo oo suuqa la geynayo waa u dulqaadan karaan kulayl intaan ka badan. Laakiin kuwan la rabo in laga soo saaro miraha intooda badan kulaylkaa saa'idkaa kuma fiicna, maxaa yeele saameyn ayuu ku yeelanayaa. Marka sida aan sheegnay, qofkii raba marka inuu soo saaro abuurka basasha waxaa la rabaa marka inuu ka fakaro xilliyada waddanka oo qabowga fiican uu ka jiro, roobka ku habboon uu ka jiro, gurashada fiican ay ka jirto oo la rabo inuu maaragtay mirihii ay soo qalalaan oo roob uusan jirin. Waxyaabahaas oo dhan ayaa la rabaa marka qofkii raba inuu soo saaro miraha abuurka in uu maaragtay uu isku aadiyo. Haddii marka aan kusoo noqono labada hab ee abuurka basasha loo soo saaro, sidaan hore u taabanaba waxa weeye inaad waxa loo yaqaano seed to seed iyo bulb to seed, waa labadaas nooc ayaa loo soo saaraa. Taas micnaheedu marka waxa weeye seed ayaa soo qaadatay, kabacdi waa abuurtay, caleentii iyo xididadii ayaa soo baxay ilaa ay isku beddesho jiridii ama basashii oo lasoo guran lahaa. Kabacdi waxay diyaar u tahay in suuqa la geeyo. Dabcan waxaa muhiim ah in basasha aad abuuraysid ay tahay ama long day ama short day ama intermediate, inay tahay mid waddanka ku habboon. Waa anagii niri midda oo short day-ga ah ayaa Soomaaliya ku fiican cimilada aan haysano darteed. Marka waa inay tahay kabacdi suuqa ayaa geynaysaa oo saas ayaad hal xilli oo kooban ayaa ugu soo saartay. Laakiin haddii aad rabtid marka inaad soo saartid abuur oo basal ah oodan rabin inaad suuqa aad geyso, waxaa tilaabo kale ayaa sii qaadaysaa marka. Tilaabadaas oo ah in aad abuurto basashii intaad kaydiso xilligii ku habboonaa aad abuurto. Iyadii ayaa markaas waxay isku beddelaysaa inay ubax yeelato. Ubax markay yeelato kabacdi ayay waxay ku dhalaysaa marka abuurkii. Saas ayay ku dhalanaysaa. Marka sidaas weeye waa dalagyada life cycle-kooda ay qaataan labada xilli oo basasha ah. Marka waxay qaadanaysaa 10 bilood ilaa 12 bilood ayay qaadanaysaa in marka abuur la soo saaro oo basasha ah. Wadamada oo Soomaaliya oo kale iyo Ethiopia oo kale iyo Kenya oo kale, haddii cimilada ku habbooneed iyo xilliyada ku habboon haddii lagu aadiyo 10 ilaa 12 bilood ayay qaadanaysaa. Maxaa yeelay 4 bilood ilaa 5 bilood ayaa wax ku soo saaraysaa basashii caadiga ahayd. Kabacdi ayada ayaad meel fiican oo habaysan oo ku habboon ayaa dhigaysaa, kabacdi ayaa sii abuuraysaa. Taas ayaa marka waxay qaadanaysaa in ubixii uu soo saaro 6 ilaa 7 bilood ayay qaadanaysaa inay kuu diyaar garowdo. Marka sidaas aad arkaysid waa waqti dheer. Laakiin wadamada qabowga leh mararka qaar waxay sameeyaan 2 sano ayay ku qaadataa inay abuuraan oo ay ku soo saaraan. Laakiin waxaa jirta mid la yiraahdo seed to seed method, ayadana way jirtaa oo wadamada qabow laga sameeyo. Maxaa yeelay tan oo kale ma u malaynaa Soomaaliya inay ku habboonto. Hadda Ethiopia oo kale waa lagu soo saaraa midaan seed to seed method-ka la yiraahdo. Waana laga yaabaa inay jiraan kuwo ku habboon oo Soomaaliyana looga soo saari karo. Laakiin badanaa hadda Ethiopia oo kale aad waxay u isticmaalaan qaybtii hore aan soo dhaafno oo kale ayay aad u isticmaalaan. Marka midaan waxay u baahan tahay xilli qabow ah oo vernalization waxa la yiraahdo ayaa jira. Vernalization-kaas marka wuxuu keenayaa oo u baahan yahay geedkii inuu xilli qabow ah uu helo si uu soo saaro ubax ayuu u baahan yahay. Marka temperature wuxuu u baahan yahay 8 ilaa 13. Dabcan waa laga yaabaa inay kuwo ka duwan noocaas ay jiraan oo qabowga saa'idka aan u baahnayn. Xilli marka waxay u baahan yihiin 1 bil ilaa ka badan ayay u baahan yihiin qaarkood in qabowgaas uu taabto. Kabacdi ayay markaas waxay samaynayaan in ay ubixi saaraan. Haddii kale qabowgaas fiican aysan helin, waxaa laga yaabaa marka inaysan miro fiican iyo abuur fiican aysan soo saarin. Marka labadaas qaab ayaa la isticmaalaa oo loo soo saaraa abuurka. Laakiin Soomaaliya oo kale badanaa haddii la rabo in la soo saaro abuurka basasha, waxaa aad loo isticmaalaa oo ku habboon nooca la yiraahdo bulb to seed method-ka. Noocaas ayaa moodaa inuu ku fiican yahay. Baaritaamo fiican ani kuma samayn oo waddanka kuma tijaabin, laakiin wadamada deriskeena inta badan nidaamkan ayaa la isticmaalaa. Laakiin waxaa muhiim ah qofkii raba inuu soo saaro abuurka basasha ama raba inuu soo iibsado, waxaa muhiim ah basashu inuu ogaado inay ka mid tahay abuuryada aadka ay u yar yihiin xilliga la hayn karo oo 4 bilood ilaa 6 bilood, mararka qaar ugu badnaan wax 1 sano ka yar ayaa la haynsan karaa. Haddii ay marka inta soo gurtid haysid ooda meel fiican dhigin, si dhaqsaah ayay ku halaabayaan oo hadhow xataa markii aad abuurtid inta soo baxaysa aad ayay u yaraanayaan. Dalagyadaas ayay ka mid yihiin. Mararka qaar waxaa la sameeyaa marka inta
moisturekooda ama qoyaankooda ilaa 6% laga dhigo oo si fiican maaragtay mid aysan aaryada iyo qoyaan iyo mid aysan soo gelin karin container inta lagu xiro oo meel fiican oo ku habboon haddii la dhigo waa laga yaabaa markaas xilligii lahayn karo inay dheeraadaan oo intaas ay ka badan tahay laakiin intooda badan haddii kartoonkaas aysan oo maaragtay wax hawaa ama wax qoyaan aysan soo geli karin haddii lagu hayo meel fiican la dhigo xilligooda waa laga yaabaa inuu dheeraado laakiin sida caadiga markii loo soo guro lama mid ahan marka abuurada kale oo yaanyada iyo barbarooniga oo kale iyo oo ka xilliga dheer ayaga waqtigooda aad ayuu u gaaban yahay marka taasna waa muhiim qofku inuu ogaado marka intaas ayaan ku ekeynayaa waxaan rajeynayaa marka video inaan ka faa'iidaystay intaan video kala kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan